dugsiga Hargable ay ku sugan yihiin daraawiishta ururkii labaad taliyaha ciidanka iyo la taliyaha iyo saraakiisha dugsiga iyo ciidanka tababarka ku jira dhammaantiinba waad salaamantihiin runtii maanta sharaf bay noo tahay inaan soo booqanno fursaddan aan u helnay inaan qarno ku soo booqanno inaan inugu aragno waxaan uga mahadcelinayaa guddigii dib u habeynta ciidamada amniga ee madaxdu ahaa wasiirka maaliyadda iyo wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka wakhtigii dheeraa iyo dadaalkii badnaa ay geliyeen sidii ciidamada Puntland dib u habeyn u qalanta ee ciidanka difaaca Puntland loo gaarsiin lahaa wixii ka dhiman hadday ahaan lahayd tababar iyo hadday ahaan lahayd agab iyo hadday ahaan lahayd dib u habeyn ciidanka dhexdiisa intaba siyaasaddaas dawladdu ay qaadatay sida habsamida leh ay u socoto runtii intii ka baxday iyo inta hadda ku jirta iyo inta soo geli doonta intaasba waxay ka mid ahaan doontaa siyaasaddaas la rajaynayo in sharafta iyo karaamada ciidanka Puntland kor loogu qaado si ay ugu sahlanaato inay waajibkooda ay ummadda u hayaan ay u gutaan dawladda waxaa ka go'an inay ahmiyad weyn siiso ciidamada hadday ahaan lahayd mushaharooyinkooda hadday ahaan lahayd adeegooda kale iyo hadday ahaan lahayd wixii ay u baahan yihiin oo tababar iyo kor u qaadid wacyigooda iyo discipliinkoodaba in qayb weyn la geliyo si dadka Puntland ay ugu naaloodaan oo ugu nastaan amnigoodana ay runtii ay sababto in dadkan horumarkiisa uu hore u kaco waxaan marka ugu horeysaa dufcaddan si gaar uga mahadnaqayaa waa dufcad sida haldalla taliyuhu sheegay dufcad loo bixiyay dufcadda Badar oo muddo dheer runtii dadka nabadiidka iyo dadka cadowga ah hortaagnaa u diiday inay soo galaan deegaanada iyo magaalooyinka buuraha ku hor joogay in badan ay uga shahiiday ilaahay ha u naxariisto in badan ay duruuf adag ay ku soo sabreen maanta sharaf ayay inii tahay in dadkiina iyo dalkiina inta inii og yahay ummaddu way isku tiirsan tahay qof walba meel buu ku tiirsan yahay islaanta yaanyada gadaysa ee shalay kuwooda qarno jooga biyaha la tageen ummaddan qiimay u leedahay maxaa yeelay qayb ka mid ah bulshada oo ay ku tiirsan tahay weeye qaybtiin waa hooyooyinkiin qaarkiin waa xaasaskiinni haddaydan idinkuna cadowga ka ilaalin ma ay heli karto inay ciyaalkii iyo ubadkii ay koriso magaalooyinkii ay ku dhaqmaan horumar ay u sameeyaan bulshadooda marka qolo walba qayb bay ku aadan tahay laakiin ummad walba meel degan dadka ugu muhiimsan waa dadka ciidanka ah oo amniga ayaa asal u ah dadka amniga sugaya waa dadka ummadda ugu qiimaha badan oo la rabo in ay ummaddan markaas salmigi u fariisato waxaan kaloo runtii aad iniga mahadcelinayaa gurmadkii aad ka geysateen daadadkii ku soo dhacay magaalada oo runtii haddii aydan joogi lahayn waa boqolaal qof oo meedadan maanta aasi lahayn marka ummadda in la difaaco waa wax walba in laga difaaco midka xag jirka ah oo qoriga sita in laga difaaco biyaha iyo daadadka in laga difaaco dabka in laga difaaco jahliga in laga difaaco kala dambayn la'aanta in laga difaaco tuugada iyo dadka xun in laga difaaco dhaqaale xumada in laga difaaco difaacu meel walba u galaa ma aha difaacu nin qori wata oo la difaaco kaliya marka sidii ciidan lagu yaqaanay oo runtii ciidanku marka xaalad kasta jirta ay u taagnaadaan ayaa maanta ku sifowdeen sharafteeda leedihiin waxaan rabaa maanta inaan halka caddeeyo inta halda ku jirta dugsiga oo tababarka ku jirta inta dugsiga tababarka ku jirta inaan kulligood min hal darajo la dalacsiiyo waajibkii hore aa u soo gudateen iyo waajibka hadda aad gudanaysaan oo ah inaad tababaranaysaan oo disiblinkiina iyo horkac u socdaan
iyo inaad dadkiina u adeegaysaan sidoo kale waxaan rajaynayaa in maanta maadaama shalay iyo daraad ay aad u shaqeeyeen iyo maanta u shaqeeyeen in iyagana geel loo qalo oo si ay maaragtay nolol fiican oo ay uga soo kabtaan waxyaabihii dhacay si gaara ayay dawladdu inugu tashanaysaa khaasatan idinka waxaad ka fadli badan tihiin kuwa badan oo ciidanka ku jira maxaa yeelay idinku meeshii ugu adkayd Puntland ayaad ka shaqaynayseen marka tababarkiina iyo aqoontiina kor u sii kacdana waxaan rajaynaynaa intii hore u soo qabateen in ka badan aad qaban doontaan inta yar oo dhuumaalaysanaysa ilaahay idankiisa iyagana inaan soo dabar jarno si aan ugu soo jeensanno marka cadowyada kaleeto oo ah cadowyada jahliga inaad ka qayb qaadataan kuwa tabaalaysan inaad ka qayb qaadataan inaad magaalooyinka naftirkooda nadiifisaan magaaladan shalay waxa saa u galay waa dad sharciga iyo dawladnimada diidan oo meelihii biyaha mari lahaayeen dhistay wax looga qaban karaana waa sharci iyo ciidan dalka marka difaaciisa guud aan soo sugno waxa la rabaa dadka gudahiisa ku caadaystay nidaam darrada iyagana in shaqo laga qabto marka inaad u diyaar garowdaan baan laga rabaa saasaa nolosheenna ku jiraysaa saasaa nolosha adduunyada horumartoo la sheegay ay ku jirtaa asaageen inaan ka harno asaagaa ka harso layskuma habaari jirin asaageen inaan ka harno waxa weeye waa kartixumadeenna waa inaan ummadaheenna aan tiigsannaa waa inaan sida adduunka looga nool yahay uga noolaannaa waa aan ciidankeennu ee sharciga iyo kala dambaynta gacanta ku qabtaan waa in bulshada aan marnaa in qofna uusan xadkiisa ka gudbi karin oo uu ku dhex noolaado nidaamka sharciga ah ee dalkaasi leeyahay markaasaa dalka horumar iyo nolol deggan iyo nolol u qalanta dadkan ay heli karaan barwaaqadii baa nahareer taalla maalin walba nimcadii baa sidaas isugu beddeshay inay noqoto aafo biyihii iska durduraaya badahay gelayaan guryihii bay burburinayaan meeshii xoolaha lagu dhaqan lahaa oo beeraha loogala soo bixi lahaa oo dadkan baraare ay ku gaari lahaayeen marka hawl badan baa ini sugaysa waxaad ogtihiin ciidamadii dalka uu lahaan jiray markii abaarihii dhaceen hadda inta soo gaartay inta halka fadhida anay intay tahay ma garanayo kolley dhar isku eg baa gashateen oo qaar odayaal waa inugu jiraan dhallinyaraas u adeegtiin hadda 24 markii abaartu dhacday dadkii u soo gurmaday oo dadka raray oo dadka miyiga ugu tagay ciidamadii bay ahaayeen markay daacunada dhacaan dadka ciidamadii ahaayeen markay fatahaadu dhacdo dabcan goboladan fatahaadu waa ku cusbaayeen meelahay ka dhici jirtay ciidamadii ahaan jireen marka ciidan u qalma inay ummadooda u shaqeeyaan inaan noqotaan tababarka iyo dhididka iyo ordinta iyo dabcan inaan loo qaadan ciqaab sida ay saxda tahay maxaa yeelay ciidamadeennu waxa ay ku fiican yihiin waa naqaanaa weliba ciidamada degaankeenna waa dad geesiyaala oo xabadda ku fiican waxaa la rabaa in aad noqotaan dad ka duwan dadka kaleeto maxaa yeelay dadka kaleeto oo hadda qaanuunka iyo sharciga aan ogolayn dadkii aan ku qaban lahayn idinka way marka qof sharciga ilaalinaya hadduusan isagu asluubtii uusan lahayn macno soo kordhin maayo marka waxaan rajaynayaa iyagoo guddigii hawshiina gacanta ku hayay si dhow inay la socon doonaan duruufihiina mar walba ay u dhawaan doonaan waxaa naga go'an annaga inaan ciidamo dalkan isku halayn kara in laga shaqeeyo dadkii ka shaqayn lahaana madaxdii diyaar bay inay tahay dadkii lagu shaqayn lahaa oo siyaasaddaas dawladda ay ah in dadka loo jiheeyo dhinaca horumarka iyo kala dambayntana waa idinka meesha laga bilaabay isbeddelkana waa idinka waan hubaa haddii isbeddelkaas uu miro dhalo Puntland isbeddel baa ku dhacaya marka inaad si fiican u qaadataan casharradan la siinayo waqtiga u ilaalisaan macallimiintiina u caddeecdaan wanaag badan oo habkii xorriyaddii buurta isaga jirteen oo ninna aan markuu maalinta xabadda dhacdo uu dagaalamaya inta kale siduu raba iska yeelaayay inay ka duwanaato muddada halka joogtaan maxaa yeelay waxa hadda halka aad ka barataan oo aad adayga iyo kala dambaynta ah
waxayna anfici doontaa maalinta adag marka aad joogtaan marar badan bay dhacdaa in ciidamo iska horhurda intii loo yimaaday gamta laga suray waan ogtihiin waxa keenay waxa weeye waa tababar xumo iyo dhiifoonaan la'aan marka waxaan rajaynayaa inaan wixii hore aan wax ka bedelno oo ciidamo soo jeeda oo dhiifoon oo u bisil shaqada ay gudanayaan inaan noqotaan aad baad u mahadsantihiin waan ugu faraxsannahay hawsha sida u socoto waan u mahad celinayaa runtii maamulka dugsiga iyo macallimiinta shaqadan culus qabatay shaqadii horeeto oo ay qabteenna ay ku ammaanaayeen waan rajaynayaa kuwani inay ka duwanaadaan kuwii hore maxaa yeelay waa ciidan khibrad dagaal leh oo muddo badan soo joogay waxaa la rabaa dhinacyada ay ka hooseeyaan inaad kor u qaadaan waan rajaynayaa tabta ciidanka inay aad ugu fiican yihiin laakiin waxay u baahan yihiin tababar tab ciidana keliya maahana waxay u baahan yihiin duruus dheeraada ah oo lagu baro waan filayaa dabcan manhajku ma fiirine waxaa la rabaa advanced courses in la siiyo oo taliya aad ka shaqaysid oo saraakiil baa waddanka ka buuxda xataa haddii aysan ku filnayn loo yeero oo ah hogaaminta iyo sida ay xaaladaha adag ay ula jaan qaadi lahaayeen waan rajaynayaa in dib loogu noqdo manaahijta hadda ay qaadanayaan marka aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu